Asalaamu calaykum filimkan waxaa ku bilaabmaya sanadkii 1973 halkaasna waxaan ku arkaynaa nin lagu magacaabo Bill kaas oo ah madaxa shirkad samaysa sahaminta waxa uu soo geliyay aqalka cad asagoo hadafkiisu yahay inuu ku qanciyo madaxda halkaas joogta qorshihiisa waxa uu sheegayaa inuu soo helay meesha ay jasiiradu ku taalo waxa uu sidoo kale ka dalbanaya kooxdu in ay siiyaan lacag sidoo kale waxa uu ka dalbanaya in ay siiyaan koox ku wehelisa safarka marka hore madaxdu ay diideen laakiin waxa uu sheegayaa in ay koox ruush ah dabagal ku hayso jasiirada haddii ay ogaadaan ay iyagu heli doonaan wax walba oo hanti ah oo iyagu ku qarsoon isla markaasna madaxdu waxa ay qorshihiisa inta kadib madaxdu waxa ay diyaarinayaan team saamin ah kuwaas oo saaminaya dhammaan jasiirada waxaana hogaaminaya nin lagu magacaabo Bill sidoo kale teamka waxa lagu daray nin khabiir ku ah helida iyo hagida wadooyinka kaas oo isna lagu magacaabo James inta kadibna waxaan arkaynaa in ay teamku diyaar u yihiin in ay u safraan jasiirada waxayna soo raacayaan markab ayagoo u soo jihaysanaya dhankaas iyo jasiirada sidoo kale teamka waxa la raacinaya sawir qaadad taasoo lagu magacaabo Mason kooxduna waxa ay ku raaxaysanayaan jawigooda iyagoo waqtiyo qurux badan ku qaadanaya goobta ugu dambeyntii kooxdu waxay soo gaareen meel u dhow jasiirada isla markaana Bill oo ah kabtanka markabka waxa uu yeedhaya kabtanka ciidanka kaasoo magaciisuna ahaa Bill oo ah kabtanka markabka waxa uu yeedhaya kabtanka ciidamada waxa uu sheegay in hortooda taalo duufaan aad u weyn ayna loo baahan yahay in ay isticmaalaan markabka ay ku dhiman doonaan bedelkii ay markabka isticmaali lahaayeen waxa ku dhahaya waxaan jasiirada ku gaari karnaa diyaaradaha helicopterka ah isla markaana kabtanka iyo teamka intiisa kale waxa ay aqbalayaan ayagoo isku diyaarinaya in ay jasiirada ku gaaraan diyaaradahaas inta kadibna kooxdu waxay soo dhaxgalayaan duufaano waxayna kooxdu ku dhibaatoonayaan in ay duufaanahaas ka gudbaan waxaana agagaarkooda ku dhacaya dildilaacyo waaweyn kuwaas oo kooxda cabsi gelinaya dadaal dheer kadib kooxdu waxay soo gaareen ugu dambeyntii kooxdu waxay soo gaarayaan jasiirada kooxduna waxa ay la yaabanaan dhulka quruxdiisa iyo bilicdiisa waxayna muuqarkeen muuqaal ayna weligood hadda ka hor arkin dhul aad u cagaaran oo aad u qurux badan kaasoo midabo kala duwan leh isla markiina kooxdu waxay bilaabeen inay tijaabiyaan jasiirada ayagoo bambooyin ku tuuraya dhulka si ay ogaadaan in jasiirada hoosteedu ay tahay mid ammaan ah iyo in kale waxaana isla markaas si xoog leh diyaarada ugu soo dhacay geed aad u weyn kaasoo aan la garanayn meel uu ka yimaaday kooxda oo ku jirta xaalad shock ah waxay hal mar hortooda ku arkayaan gacan aad u weyn taasoo soo qabsanaysa diyaaradii waxayna u burburinaysaa sida in aysan waxba ahayn oo kale marka ay si fiican u fiiriyeen waxay ogaanayaan inuu yahay goorile aad u weyn kaasoo lagu magacaabo Kong waxa uu ahaa boqorka keynta waxa uuna istaajinaya weerarka isagoo u digaya ciidanka si ay u joojiyaan weerarka ay ku hayaan dhulkiisa laakiinse Captain Buck waxa uu ciidankiisa ku amraya in aysan joojin weerarka inta kadibna waxa uu bilaabaya in ay rasaasayaan ayagoo ku wareegsanaya laakiinse waxaan arkaynaa in rasaastu jirkiisa waxba Kong waxa uu markiiba weerar ku soo qaadaya teamka isagoona mid u burburinaya diyaaradihii helicopterka ahaa isagoona xanaaqsan ayuu goobta iskaga tagaya laakiinse Captain Buck si caar leh ayuu u safiirinaya goorilaha maadaama uu dilay qaybo kamid ah ciidankiisii qaybo kamid ah askartii oo hogaaminayay inta kadibna kooxdu waxay ku kala lumayaan jasiirada James waxa uu ahaa ninkii helid ku ahaa hagida iyo helida wadooyinka waxa uu arkaya qaybo yar oo kamid ah kooxda waxayna isku dayeen inay la xiriiraan Captain Buck inta kadibna waxayna la tusayaa Captain Buck iyo qaybo kamid ah ciidanka kuwaas oo ahaa qaybihii shilka ka badbaaday waxa uu helayaa laba qof oo kamid ah ciidamadiisa waxa uu ku farxayaa imaanshahooda inta kadibna waxa uu soo dhaqaaqaya dhankaas iyo Captain Bill kaas oo ah kabtankii ka dameeyay inay yimaadaan jasiirada waxa uu ku qabanaya bastoolad asagoo ugu hanjabaya in haddii uusan u sheegin waxa dhabta ah ee ka jira jasiirada uu dili doono isaguna waxa uu sheegaya wax walba in ay hadda ka hor yimaadeen jasiirada isagii asxaabtiisa halkaas uu kula kulmay noolayaal badan laakiinse ma jirin hal qof oo aaminay hadalkiisa waxa uu sheegayaa in uu yimid hadda jasiirada si uu u soo bandhigo runta qarsoon ee jasiiradan kadibna waxaan arkaynaa James iyo kooxda inteeda kale iyagoo safarkooda ku jira waxay soo gaareen meel biyo fariis ah halkaasna waxay kula kulmeen noole aad u weyn kaas oo kamid ah noolayaasha jasiirada waxa uu ahaa dibi aad u weyn kaas oo kooxda cabsi gelinaya kooxduna waxay isku dayeen in la dagaalamaan laakiinse waxaan arkaynaa inuusan wax dhib ah soo gaarsiinaynin waxa uu iskaga tagayaa goobta dhanka kale waxaan arkaynaa Captain Buck iyo asxaabtiisu in ay aasayaan laba qof oo kamid ah ciidanka kuwaas oo u dilay goorilaha weyn ee Kong waxaana arkaynaa kooxdu in ay hore u soo gashay keynta inta ay dhaxda soo socdeen kooxdu waxay la kulmayaan caaro weyn taas oo kooxda weerar ku soo qaadaysa waxayna isku dayeen inay la dagaalamaan iyagoo rasaas ku badan ku furaya laakiinse waxaan arkaynaa in rasaastu wax dhaawac ah u geysanaynin ugu dambeyntii James waxa uu sheegay in ay ka jaraan cagaha makhluuq weyn waxa laga jaraya cagaha halkaas oo noloshiisa lagu soo gabagabeynayo ugu dambeyntii waxa halkaas ugu dhameynay Captain Buck isagoo xabada ku dhufanaya dhanka kale waxaan arkaynaa kooxdii ka koobnay James Mason iyo dhowr xubnood oo kamid ah teamka waxay soo gaarayaan goob ay ku nool yihiin dad duurjoog ah Mason intay goobta sawiraysa waraanta ka qaadaysa waxay kamerada soo qabanaysaa mid kamid ah dadkii tuulada kaasoo ka nixinaya Mason inta kadibna qabiilku waxay ka soo baxayaan godkooda iyagoo dhalinyarta u soo baxaya iyaguna waxay ku qabanayaan qoryo balse intuusan dagaal ka dhex qarxinba waxa goobta imaanaya nin da ah kaasoo xaalka dejinaya
waxaan ogaanaynaa ninkan inuu ka mid ahaa ciidamadii hadda ka hor loo soo diray jasiiradda magaciisana lagu magacaabo Merlow. dhanka kale waxaan arkaynaa mid ka mid ah ciidamada loo soo diray jasiiradda isagoo ku mashquulsan dhaawiciisa. intuu dhaawiciisa iska dhayay waxaa goobta imaanaya Kong isaguna markuu arko Kong waxa uu cabsi darteed ku cararaya goob waxaana ku dhuumanaya dhagax hoostiis. intaas kadibna Kong waxa uu iska dhaqayaa dhaawiciisa soo gaadhay kadibna si lama filaan ah waxaa Kong usoo weeraraya bahal caga badan. Kong waxa uu ka guuleysanaya makhluuqii isagoona cash ahaan u qaadanaya. intaas kadibna waxaan arkaynaa inuu Merlow uu soo kaxeeyay kooxda dhankaas iyo hogaamiyaha qabiilka si uu u tuso goobaha qadiimiga ah. waxa uu nooga sheekeynayaa sheekada Kong iyo jasiiradda in ay mar walba soo weeraraan bahale halis badan kuwaasoo lagu magacaabo Cruiser kuwaasoo dhibaatayn jiray dadka tuulada ku noolaa. Kongna waxa uu ahaa mid mar walba badbaadiya dadka ku nool tuulada waxaana kooxda u sheegaya inay doontiisa la hagaajiyaan si ay ugu baxaan. intaa kadibna waxaan arkaynaa inuu Merlow ka tagay dadka tuulada waxaana dareemaynaa inay ka xun yihiin bixitaankiisa. Mason waxay ka qaadaysaa sawiraan badan oo xasuus ah kadibna Mason waxay usoo baxaysaa banaanka. intaa kadibna waxaan arkaynaa in mid ka mid ah xayawaanada duurjoogta ah ay saaran tahay diyaarad aad u weyn waxayna isku dayaysaa Mason inay caawiso. intaa kadibna waxaan ogaanaynaa Mason inaysan awoodin kadibna waxaa goobta imaanaya Kong kaas oo diyaaradda ka qaadaya xayawaanka waxaana si carar ah u fiirinayaa Mason. intaa kadibna wuxuu iskaga tagayaa goobta. dhanka kale Captain Beckett iyo tiimkiisu waxay arkayaan gacan aad u weyn taasoo ku sawiran buurta hortooda taala iyaguna waa ay la yaabayaan waxayna iskaga tagayaan goobta. halka dhanka kale Merlow iyo Vector ay hagaajinayaan weli isku dayaan inay dhammaystiraan doontii ay ku bixi lahaayeen. dhanka kale Jack oo keligiis ah waxa uu ku jiraa kaynta isagoo ku fadhiya qori waxa uu hal mar si lama filaan ah u kacaya geedkii uu ku fadhiyay. waxaan arkaynaa inuusan ahayn geed uu ahaa makhluuq aad u weyn laakiinse ugu dambeynta noloshiisa waxaa soo gabagabeynaya Cruiser. dhanka kale tiimku waxay isku diyaarinayaan inay subaxnimadii ka baxaan jasiiradda waxaan arkaynaa dhammaantood inay diyaar u yihiin inay ka baxaan jasiiradda. subaxnimadii markii ay yimaadeen doonta si ay u dhammaystiraan waxaa si lama filaan ah ku noqotay intii doontu ay shaqaynayso. tiimkuna waa ay ku farxayaan laakiinse farxadooda waxaa kala jaraya qabiilka iyaga oo murugo u muujinaya bixitaankooda. Merlow siday ahaataba tiimku waa uu kasoo baxayaan goobta iyaga oo raba inay jasiiradda oo dhan iskaga tagaan. inta ay tiimku wada hadlayeen waxaa soo weeraray shimbiro dad cun ah kuwaasoo qaadanaya mid ka mid ah rakaabkii waxayna hawada dhexdeeda ku soconayaan. ugu dambeyntii waxaan arkaynaa in ay labada tiim mar kale dib u wada kulmeen. Merlow maadaama uu isagu jasiiradda kala garanaya waxa uu noqonayaa ninka kaliya ee hogaamin kara dhammaan dadka. intaa kadibna waxa uu soo kaxaynaya dhankaas iyo meesha looga baxo jasiiradda. ugu dambeyntii kooxdu waxay soo gaadheen meel u dhow meeshii ay ka bixi lahaayeen laakiinse meeshan aad ayay ceeryaamo u tahay oo macquul ma ahayn in laga gudbo balse inta ay wada hadlayeen waxaa goobta imaanaya makhluuqa weynaa. nasiib xumo waxa uu soo weerarayaa tiimka iyaguna waxay bilaabayaan inay iska celiyaan laakiinse waxa uu ku qarsoomaya ceeryaamada darteed waxa uu ku qarsoomaya goobta isagoo adeegsanaya ceeryaamada ka jirta goobta waxa uuna soo weerarayaa tiimka isagoo mid u ugaarsanaya. dhanka kale maalinkii xigtay Beckett waxa uu sheegayaa in ay isaga raacaan laakiinse waxaa diidaya Mason iyo qayb ka mid ah tiimka isaguna waxa uu ka xanaaqayaa hadalkeeda isagoo qori ku qabanaya laakiin Jack ayaa dajinaya isagoo u sheegay inay dhammaantood diyaar u yihiin inay raacaan. inta uu dhexda ku sii jireen waxaan arkaynaa buuggii xasuus qorka ah ee askarigii lagu magacaabay Jack kaas oo uu raadinayay Beckett laakiinse waxaan ogaanaynaa Beckett in uusan raadinin askarigaas ee uu qorshihiisu ka weyn yahay waxauna rabaa inuu ka arguto Kong. habeennimadii waxaan arkaynaa inuu Beckett shirqool u dhigayo Kong isagoo bilaabaya inuu kaynta gubo waxauna sidoo kale gubayaa biyaha dhexdiisa halkaas oo Kongna uu ku suuxayo. isla marka uu Kong suuxana kooxdu waxay bilaabayaan inay isku dhacaan iyagoo midka kale qori ku qabanayo. kadibna waxaa imaanaya Cruiser dhammaan tiimkuna markay arkaan Cruiser waxay bilaabayaan inay ka cararaan goobta waxaana soo kacay Kong isagoo halkaas ku dhamaynaya Beckett. aroornimadii waxaan arkaynaa inuu makhluuqii weli daba socdo tiimka laakiinse mid ka mid ah tiimka ayaa isu dhigaya isagoo raba inuu ku qarxiyo makhluuqa laakiinse waxaan fahmaynaa inuu makhluuqani aad uga aqli badan yahay sida ay moodayaan waxauna ku dhufanaya dabadiisa isagoo halkaas ugu dhamaynaya isla markaana waxa uu soo dhaqaaqaya dhankaas iyo tiimka isagoona raba inuu qof u dilo. makhluuquna waxa isku dayaya inuu u dhameeyo inta dadka soo hadhay laakiinse waxaan arkaynaa inta uusan u dhameyninba waxaa kasoo gaadhay Kong halkaas waxa uu ku badbaadinayaa kooxda laakiinse makhluuqan maaha mid qusanaya waxa uu mar labaad soo weerarayaa Kong. intaa kadibna waxaan arkaynaa in ay Mason shidayso nalka badbaadada Kong iyo Cruiserna waa isdagaalayaan. Cruiserna waxa uu cunaha qabsanaya Kong calashaan si uu u dilo. intaas kadibna Cruiser mar kale ayuu soo weerarayaa Kong isagoo raba inuu markan u dhameeyo waxa uuna ku qabanaya seyntiisa asagoo meel aad u fog ku tuuraya. intaas kadibna Kong waxa uu ku xayirmayaa meel biro ah. Cruiser oo raba inuu cunana waxa xabada ku dhufanaya mid ka mid ah tiimka kaas oo ah saynisyahankii aan bilowga muuqaalka ku soo arkaynay. Cruiserna waxa uu soo dhaqaaqaya dhankaas iyo tiimka isagoo oo raba inuu dilo laakiinse Kong mar labaad ayuu isku dayay inuu soo kaco waxauna xooggiisa dhan u isticmaalayaa si uu u jabiyo silsiladaha ku xidhan
ugu dambeyntii waa uu ku guuleysanaya isagoo silsilad gacantiisa ku xiran kusoo tuuraya Crowber waxa dhabar kaga dhufanaya Crowber silsiladii inta dagaalku socdayna Mason waxay ka soo dhacaysay gebiga iyadoo ku dhow inay dhimato marka ay biyaha ku dhacdana dagaalku wali waa uu sii socdaa halka Crowber uu koon dhameynayo waxa uu mooday inuu dhameeyo una dagaalka halkaas kaga ekaaday inta kadibna waxa uu biyaha ka soo dabagelinaya gacantiisa Mason intaas kadibna waxa uu biyaha ka soo badbaadinaya Mason waxaana arkaynaa inuu Crowber mar labaad soo weeraray isagoo raba inuu ka qaniino gacanta uu Mason ku wado laakiin kan waa uu diidaya waa la dagaalamaya ugu dambeyntii waxaan arkaynaa Kong inuu meel aad u fog ku tuuray Crowber waxaana dhulka dhigaya Mason halkaasna waxa ugu iimaanaya saaxiibkeeda Jack waxaan arkaynaa Kong inuu ka guuleystay makhluuqii Crowber waxaana iskaga tagaya goobta dhammaan teamkuna waxay ku faraxsan yihiin badbaadadooda baaris baan ku soo sameeyay waxa ka jira jasiiradan ugu dambeyntii waxaan arkaynaa in teamka oo dhan wada murugaysan yihiin halka uu Merlo faraxsan yahay waxaan arkaynaa dhammaan teamku inay soo gaareen bardhamaadka jasiirada waxaan ugu dambeyntii arkaynaa Merlo inuu soo gaaray gurigiisa ugu dambeyntii markuu Merlo soo gaaray gurigiisana waxa isagoo si qurux badan u soo labisan oo wax wato u iimaanaya xaaskiisa wiilkiisa ayaa albaabka furay laakiin waa uu garan weynaya waxaana ugu dambeyntii albaabka furay xaaskiisa taasoo garanaysa halkan ayuu filimku ku dhamaanaya waad ku maasantahay daawashadaada intaan filimkiisa xigay ku kulmayna waxaan kaaga tagayaa sidaas iyo nabadgeliyo.